golaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa deeq lacageed guddoonsiiyay qaar ka mid ah carruurta Soomaaliyeed ee agoonta ah ee waalidkooda ku dhinteen dalkani Koonfur Afrika. Maamulka golaha jaaliyada waxay tilmaameen in jaaliyadu ay sanad waliba bixin jirtay deeqdan oo kale balse cilad farsamo awgeed sanadkii la soo dhaafay aysan bixinin. Haatana ay dib u bilaabeen in deeqaha noocan oo kale ah guddoonsiiyaan carruurta Soomaaliyeed ee agoonta ah ku nool dalkani Koonfur Afrika. Gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Board ee dalkani Koonfur Afrika Mudane Ismaaciil Cabdalla Soomane oo warbixin gaar ah ka siiyay Universal TV deeqda ay guddoonsiiyeen carruurta Soomaaliyeed ee agoonta ah ayaa sheegay in ay deeqdani guddoonsiiyeen 11 qoys oo ka kooban 25 carruur ah oo haatan ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Wuxuuna inta raaciyay in ay gobolada uu dalka Koonfur Afrika ka kooban yahay ay Soomaalidu ku nooshahay ay dhawaan iyagana agoonta ku nool deeq noocan oo kala ah gaarsiin doonaan. deeqda waxay ahayd deeq aan gaarsiinaynay agoonta degan magaalada Johannesburg oo runtii gaaraya ilaa iyo 11 qoys oo ka kooban 25 carruur oo agoona waalidkooda lagu dilay waddanka Koonfur Afrika dhibaatooyinka ka dhacay ee saameysay lagu dilay. marka runtii deeqdan ma aha bilow hore jaaliyadu u bixin jirtay laakiin sanadkii dambe hadda way hakatay laakiin ilaahay mahadi hadda dib ayaan u bilownay waana socon doontaa si joogto ah. sidoo kale waxay gaari doontaa gobolada oo dhan waa gaari doontaa haddii alla idmo. waxaan diiwaan gelinay tiro ka badan ilaa iyo 96 agoona waan filaynaa inay iyagana gaari doonto inta kale haddii ilaahay yiraahdo. gudoomiyaha golaha fulinta jaaliyada Somali Community Board ee dalkani Koonfur Afrika Mudane Ismaaciil Cabdalla Soomane oo dhanka kale aan wax ka weydiinay qaabka shaqada xafiiska jaaliyada wax qabadka ay higsanayaan ayaa sheegay tan iyo intii la bedelay maamulkii hore ee isagu noqday gudoomiyaha cusub inay ku soo kordhiyeen xafiiska jaaliyada wajiyo cusub iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wax uga bedelayaan arrimaha Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika. Plan horyaal ugu muhiimsan waxay tahay arrimaha sharciga ama dadka soo galootiga oo Soomaalida gaar ahaan way ku dhiban yihiin sharciga helitaankiisa waddanka xootiya wada dheer u soo maray inay sharci helaan in nabad helaan in shaqeystaan. marka bal inaan u fududeyno inay helaan marka hore sharciga iyo waddanka u yimaadeen si ay u helaan xurriyad ay ku shaqeysan karaan. qodobka labaad waxay tahay arrimaha hadda aan ka hadalnay oo gargaarka in loo helo kuwa dhibaataysan inay daryeel helaan in gargaar helaan. waxa saddexaad waxay tahay waxbarasho inaan u helnaa waxbarasho dad kala duwan jaamacadaha kuwa ka soo baxay iskoolaadka inay helaan tacliin sare oo ay runtii mustaqbalkooda ku anfacaan ummadana wax ugu taraan. sanadkan naftarkiisana ilaa 10 arday ka badan u dirnay jaamacadaha. golaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika wuxuu ka caawiyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin sharciyada waxbarashada taakulaynta dadka tabaalaysan iyo difaacidda xuquuqda jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika iyagoo ku shaqeeyo nidaamka safaaradeed ee Soomaalidu ugu baahneed dalkani Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.